Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada akhyaarta janaalka Caaqil Tag. Muuqaalkan waxaan rabaa maanta inaan isla sameyno marka website-ka aad u jeedaan anagoo isticmaali doona marka Bootstrap. Marka website-kana wuxuu leeyahay drop down. Okay, wuxuu kaloo yahay mid responsive ah oo aad ku isticmaali kartid marka aan device. Haddii aan inspector ka tago device-kan u door and then waad aragtaan waa mid responsive ah. Aan u sii gudagalno marka inaan dhisno marka website-kan oo kale. Waxaa kaloo jirto markasta oo aan sameeyo project source code-kiisana waxaa soo dhigaa linkiga description-ka. Waxaa kasoo degsan kartaa marka GitHub-kayga. Okay, waxaad tagtaa marka halka aad ku qori lahayd koodkaaga. Ani marka waxaan isticmaalaa Visual Studio kaasoo leh marka waxyaabo badan oo editorada kale kaga duwan yahay. Okay, imageska aan isticmaal lahaa waa kuwan. Waxaa kaloo ii samaysan file loo yaqaano index.html. File kale aan ugu talagalay marka inaan ku qoro marka CSS-ka. Waxaad soo furtaa marka HTML-kaaga meesha aad ku qori lahayd. Waxaad tagtaa marka documentation-ka Bootstrap. Okay, waxaad tagtaa halkan ay ku qorantaa marka docs. Markaad imaadid halkan waxaad koobiyeysataa marka koodkan wuxuu kuu suurgelinayaa marka inaad isticmaali kartid Bootstrap-ka. Waad aragtaan waa CDN link oo ah style-ki oo Bootstrap ah iyo linkii kale oo JavaScript-ga ah. Markaad koobiyeysatid waxaad tagtaa HTML-kaaga meesha ku qori lahayd. waa ku baast gareynayaa. Okay, waxaan leeyahay open with live server. Boom, waad aragtaan website-keena hadda uu daaran yahay. Okay, waxaan kaloo sameynayaa inaan is ag dhigo labadaba. Okay, waxaad tagtaa marka halkan waxaad kusoo darsataa marka linkiga CSS-kaaga. Link waxaad tirahdaa style. Okay, isla markii waxaad dareemaysaa fontiga inuu isbedelay waayo waxaa ii yaala marka fontiga aan isticmaali lahay familkeeda font family-gi. Okay, fontigan ayaan isticmaalayaa waxaana ka keenay Google Fonts. Waxaad kusoo laabataa halkan taggan iska tir. Hadda waxaan bilaabaynaa marka components ka diyaarsanay oo Bootstrap-ka lahay inaan ka doonano marka Bootstrap-ka components ka kale aanan diyaarsanayna anaga install gareyhayno. waxaad tagtaa marka Bootstrap-ka waxaad raadisaa marka component-ga aad rabtay. Okay, ani waxaan u baahnaa marka hadda navbar. Okay, waa kana navbar-ka marka midka rabtid also responsive waaye. waxa mar walba loo isticmaalo waxay tahay inuu always waxa responsive ahaado oo aad ugu fikirin marka website-kaaga sida aad responsive ugu dhigi lahayd. waxaad soo qaadataa marka kan ayaan soo qaadanayaa. intii marka aan paste gareeyay waxyaabaha qaar ayaan ka bedelayaa marka. hubinaysa marka koodkaaga. marka ugu horeyso inta waxaan ka dhigayaa page white. waxaan rabaa inuu white ahaado. Okay, waxaan soo gelinayaa marka loogada image. Okay, src loogadayda waatana waxaan leeyahay logo. Okay,
loogada waan kusoo daraa hadirtaan haddii aan jargaaraya marka waad aragtaan loogadeeda hatana waxaa kaloo ii leeyahay navigation tabki marka hadirtaan waxaan sameeyey marka loogada sidaad aragteen waxaan rabaa inaan kusoo daro marka buttoniskan waxaana geysaan marka koodhkeena waxaad tagtaa qaybta hoos tag after ul-ka ayaan waxaan rabaa inaan ku sameeyo bottomiska iska ilaali marka 2 ul ayaa meesha ku jirto mid waa drop downki midka kalena waa midka weynaa waxaan rabaa inaan sameeyo marka ul kale waxaan dhahayaa marka kalaaskiisa waa btn waxaad dhahdaa marka log in waxaan sameynayaa marka another li kale kalaas u samee nav item waxaad u sameysaa asagana kalaas btn dag waxaan rabaa marka inaan waxyar weynayo badin xx oo 4 waxaan fiirinaynaa marka koodhkeen hadda maxaa isbedelay bum waad aragtaan waxaan soo gashtay marka 2 button laakiin haddii loo fiiriyo marka websitekeena kale isku mid ma ah buttoniskan annaga waxay inoo joogaan marka meel halkan oo kale ah waxaan rabnaa marka inaan meeshaan keenno sidee ku suurgalaya marka inaan sameyno inaan geyno halkan waxaad tagtaa koodhkaaga markaad koodhka imaadid waxaad tagtaa ul-ka waxaan leenahay margin end out I hope waxaan rajeynaa marka inuu inoo sameysmo waad aragtaan marka foldaway waxaa jiraa geeska waxaan rabaa marka inuu naafka inuu space kasoo qaata ayaan rabaa intan space oo kasoo qaato waxaad imaadaa halkan container fluid ka bixi container ledheh waad aragtaa marka hadda space ayuu kasoo qaatay rabaa marka waxyar margin inaan dhexeysiiyo labadan waxaa leeyahay marka inta imaaw halkan waa li-ga margin oo endi ah end waxaa ka wadaa rightkan ka wadaa macnaha markuu large yahay ha kala fogaadaan waad aragtaan haddeertaan way kala fog yihiin waxaad tagtaa marka koodhkaaga waxaan sameynaynaa drop downka sida aan rabna inaan u design gareyno marka drop downkan halkan ku yaalo koobiyeysa marka hadda wax kalama sameyn drop downka ayaa ugu soo hormarsiiya waxaan u yeelaya waxay tahay designka inoo sameysnaayo ama websiteka aan rabnay inaan dhisno waxaa ugu soo horeeya waa drop down waad ujeedaan kadib ayaa waxaa imaanaya marka ada bottomiska kale drop downka marka halkan waxaan ku qoraynaa marka features waxaad sameysaa marka inaad iska wada bixisid drop downka waxyaabaha ku jiro kadib waxaan ku bestgaraya marka kood yaroo ii sameysnaay waxaan sameeyey marka drop downka dhexdiisa waxaan geliyay anchor tag kaas oo ah marka waxyaabaha ku dhex jiro flexbox line itemkooda oo ay yahay marka center gaabka u dhexeeya marka labada shay waxaa waaye waa 3 waxaa kaloo soo geliyay marka imagekaas oo leh marka span oo ku qoran marka titleki haddii aan u laabto marka koodhkeyga waxaad aragtaan marka drop downki waxaan rabaa marka labada drop down waad dareemi kartaa shadowga iyo waxyaabahaas ayuu kala duwan yihiin midkaan waad aragtaan shadow ma lahan shadow ayaan kusoo daraya marka waxaad tagtaa marka halkan waxaad tirahdaa shadow samey borderka waxaa ka dhigtaa 0 borderka 0 ayaa ka dhigi balin 3 waad aragtaan dirtaan drop down kowaad sidan ayaa ugu tagay midka labaad aad marka
si u qurux badnaado marka koodkeena drop down menu waa qarinaya marka isku yareeye meeshan ayaan waxaa rabaa marka anaa drop down la sameeyo drop down kale ayaan soo paste gareysta marka drop down kale marka waxaa ii samaysan li-giisa waxaa la dhahaa marka company waxa ku dhex jiro marka oo nested ku ah ama hoos galaya another li kale oo igu qoran marka history iyo mid kale aan u bixiye marka our team iyo mid kale oo blog aan u bixiye hadii aan ku laabto marka asagana waa kana stylekiisa iyo wixiisa dhan waa habeysay intaas marka waxaan ugu baxayaa marka navigationka haddii aan isku fiirino marka naafka inoo samaysan iyo midka kale waxaad samaysaa yarey kan ma ah marka currentiga activekana iska bixi halkan waxaan ku qoraa marka career intana waxaan ku qoraa marka about kan waxaad samaysaa marka iska bixi isagana waa remove garee hadii aad fiiriso marka navigationka waxaa inoo samaysan marka intaan navigationkeena hadii lagu barbar dhigo marka midka kale hore inoogu diyaarsanaay haddii aan ku barbar dhigno marka midkan waxay yihiin marka kuwo isku mid ah waxaan galaynaa marka sectionkan kale waxaad samaysaa marka naafka inaad isku yareysid halkan imaaw rabaa inaan sameeyo section wuxuu leeyahay marka container wuxuu leeyahay row waxaa ku dhex jiro marka columnkaas wuxuu yahay marka caadiyan waa 12 marka laakiin large screenska la rabo in la isticmaalo ha noqdo 6 kana waxaan u baahnaa marka 2 xaba midna waa kana midka kalena waa kana hadda marka waxaan rabnaa inaan sameyno waxaan ku bilaabaynaa marka hore inaan dhisno qaybtan waxaan u baahnaa marka inaan qoraaladan aan helno si aan u dhisno marka qaybtan sameynaya titleka ayaan koobiyeysanaya marka waxaad ii samaysaa dif loo yaqaano content h1 igu samee oo wadata marka title waxaan ku paste gareeya marka qoraalka aan soo qaatay wuxuu leeyahay paragraphkan waxaan ku qorayaa qoraalkan margin top 4 macnaa waxaan rabaa titleka inuu ka sigto sameynayaa marka actionkii ama bottomkii waxaa dhahdaa marka class oo btn ah wuxuu ka siiyaa btn dag waxaa rabaa marka inuu weynaado marka x axis-ka waxaa tirahdaa 5 pixelka bah x axis-ka waxaa rabaa baalin 5 iyo 5 inuu ka baxo btn largin ha ahaado qoraa marka len waxaan marka kasoo suga marka kor margin top of waad aragna waxaan kusoo darayaa styleki halkan imaaw waxaa tirahdaa horta image ayaan soo wadaa imageka waxaa tirahdaa mar walba ha ahaado 100% widthkiisa waxaan kaloo dhehaynaa section waxaa wataa body of 100 pixel kor iyo hoos ah left iyo right-ka waxaa tirahdaa 0 pixel waxaa kaloo ii samaysaa min height waa 100 b height intaas ayaa sameeyey title h1ka waaye font size 5.8 rim font weight bold paragraph waxaa tirahdaa font sizekiisa 18 pixel color waxaan rabaa rgba waxaa tirahdaa marka meeshan 0 tab 0.4 aan ku laabto marka waad aragtaa waxaan rabaa inaan sameeyo marka inaan kusoo daro koodhkeyga sectionkan oo aan kusoo bandhigayo marka clientskeyga logooyinkooda dadka halkan row
row waxaan rabaa inaan soo geliyo marka columnkaas wuxuu leeyahay image. waxaad kubiyeysaa marka ilaa iyo 5 mar, ilaa iyo 4 mar. waxaad tagtaa halkan sector mark sectionkaas, soo geli marka imageyada aa ugu talagashay halkaas. fiiri marka waad aragtaan bottomka ayuu hoos ugu jiraa. marka si aan u xaliyo waxaad tagtaa halkan margin top, waxaan leeyahay marka 5 aad inoogu sugto. kaloo u baahanahay ayagana inaan u sameeyo wax loo yaqaano gato ama space oo isku kala jirsadaa marka dhammaantood. waxaan leeyahay gato after qaybtan marka waxaan ugu baxay marka sida tan. waxaad tagtaa right ka tag marka waxaan rabaa inaan image soo geliyo imagene leeyahay marka halkan banner. waxaad tagtaa marka imageka aad rabtay inaad soo geliso waa kana. okay waxaan soo fiirinaynaa marka koodkeyga. waxaan rabaa markaad dhirtaan inaan navbarka aan ka dhigo mid fixed ah. waxaad ujeedaa marka scroll haddaan sameeyo navbarka wuu qarsamaa. haddii aan u laabto marka midka aan diyaariyo ujeedaa navbarka ma qarsamaayo, kan fixed ah. navbarka horta marka ugu horreyn waxaa kasoo dhigtaa mid fixed ah, fixed top. okay hadirtaan waa fixed. haddii midkaan loo fiiriyo marka textiga ama contentiga sectionkiisa waa center keena, laakiin haddii aad fiirisid waxyar top ayuu jiraa. waxaan sameynaynaa marka inaan center ka dhigno asagana. okay waxaad tagtaa halkan display flux geli, waxaad tirahdaa marka flux column justify content center. okay waad aragtaa marka hadda center waa. tada kale waxaa inaga khaldan marka paragraphka haddii aad fiirsato marka textigiisa intaas ayuu ku fadhiyaa, laakiin midkaan sameynayno paragraph baad ujeedaan textigiisa ilaa wuxuu gaarayaa the end of columnka. marka waxaan rabnaa inaan yarano. koodka tag marka waxaad tagtaa stylekaaga meesha aan paragraph ku wacayne width caadi maro, laakiin max width araba 450. okay hadirtaan waa cabirka saxda ah. waxaan fiirinaynaa marka inuu responsive yahay iyo in kale. inspectorka dheh wuxuu kaloo lahaa marka inspectorka imaaday horta labada column marka inspectorka la imaado wajudaada aad ayuu iskugu dhagweyn. haddaan ku calaameeyo columnkan waa midkii ahaay laftiga, midkan hooseyna waa kii ahaay rightka. meesha iska galaan marka aad ay iskugu dhawaanaan. inaan ka bixiya ayaa rabaa, kadibna waxaan ku tusayaa errorka kala jiro oo la rabo marka in la xaliyo. waxaad tagtaa marka koodkaaga laakiin markuu leeyahay marka large screenka 0 ah, marka kale laakiin 4 ah. kulaaba marka waad aragtaa marka meeshii hadda waxaa kasoo baxay space oosan jirin haddaay. waxaan kaloo rabaa inaan sameeyo waxaan ku tusayaa marka midkii hore tag marka design-ka hore inspector leh fiiri markii uu responsive oo noqdo ama mobile screenska camal noqdo image-ka ayaa ugu soo hormaraya. hadirtaan midkeena laakiin waxaa ugu soo horeeyo contentiga ama left side-ki. waxaan rabnaa marka left side-ka inuu hoos aado. waxaad tagtaa marka koodkaaga waxaad ka tagtaa marka columnka imageka. markaad tagto waxaad tirahdaa order last order first. waxaa kaloo sameysaa marka halkan order lg large screenka waa mana last markuu soo yaraado laakiin first noqdo. waad aragtaan waa first dirta, laakiin haddii aan weyneeyo marka laakiin last waa isaga ayaa last. okay waxaad tiraahdaa marka meeshaan 0 ka dhigi lahay inaan gaadfur sameeyo asagana.
meeshaan marka wax yar close ayaan ka dareemayaa. meeshan gas rollka 0 aan ka dhiga marka waan ka badinayaa marka si wax yar u kala sigtaan. halkan imaaw haddii aan intusaan dhaho gaatarka u dhexeeya macnaha labadaas kolam mar walba ha ahaada leeyahay 4. okay, waad aragtaan marka designkii waan dhameeyey. waad ujeedaan marka waa responsive oo iconska da inta taabto waad aragtaan wixii ayaa soo daadanayo. haddii aan drop downka doorto waad aragtaan drop downka ayaa ii imaanaya. drop downka labaakana waad ku mahadsan tahay marka daawashadooda. haddii aad ka heshid muuqaalada koodhinka la share garay asxaabtaada kale oo jecel marka koodhinka iyo inay sameeyaan website-yada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.